Washington markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxayna soo jeedinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegeystayaal gabyaagii caanka ahaa Saraan Carabi ayaa Allaha u naxariistay wuxuu ka mid ahaa raggii intay isqoonsadeen reerihii ay xidideen dhowr jeer u gabiyey. wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan isaguna aan iyaga ka mahad sheegan. maantase wixii ka dhex dhacay siday nagu soo gaareen inaan welinaha joogtee labadooda u garnaqi mayno oo keebaa eedda lahaa su-aasha ah kama jawaabi karayno. markaan oo kalena waa markii ay ku mahmaahi jireen Soomaalidii hore madka kalaaciye mid gardaranse allaa og. haddiise sayidka iyo raggii ay xidideen isqoonsigoodu uu siyaasad iyo hoggaaminta bulshada ku salaysnaa, isqoonsigii Saraan iyo xididkii dhex maray waxaa u sabab ahaa 3 arrimoodoo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida tiirdhexaad u ahaa, kuwaasoo kala ah yaradka, yarad sooranka iyo dhibaadda. inkastoo sodog iyo seedi in loo gabiyaa aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin, haddana dhaxalka maanso ee uu Saraan ka tegey markaan u fiirsado waxaa farsamo ahaan ila foolaadsan tixihii alla ka cabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xididkii kula garramay ee kolkii dabin la joogaba uu kaga eeseegan jiray. iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii Soomaaliyeed ee xididka loo tiriyey in kuwa ugu caansani ay yihiin isaga iyo qaar ka mida raggii uu la xididay kuwii ay isu celiyeen. dhinaca kale markaan dib u eego taariikhda maansada Soomaalida inteeda aan u warhayo cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabiyidda aan indhaha u marmaran jirin waa Allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray Axmed Nuur Aadan Qoolaab oo Axmed Diris loo yaqiin, kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisii sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee eragoo la baxay. si kastaba ha ahaatee tixaha gaagaaban ee ugu horreeya haddii laga reebo Saraan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa, isaga ayaana bilowgooda lahaa. su-aasha haddaba meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay waa siday gabayadaasi ku bilowdeen. Saraan wuxuu guursaday gabar la odhan jiray Cawo Dhooble, siduu isagu gabayadiisa qaarkood ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo noolba lahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen. isla reer Dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inanlayaal ku noqday. siduu hiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusubi xididka ayuu saaraa. ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonihii aanay meesha u joogin. sidaa darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo hameen wixii uu tiriiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan. ha yeeshee wax kastoo ku wacnaa iyo siduu Saraan tixdiisa ku sheegi doonaba taasi ma dhicin. dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayuu Saraan inta maraha gaajo dareemay ayada u qaraab doontay si miraha geedaha ka baxa uu cabashada caloosha ugu aamusiyo. isaga oo mareerkii hoohobtii iyo miracaskii guranaya ayaa waxaa arkay baa laleeyahay reerkii uu la xidiiday dumaradii joogay qaarkood. waagii horena ragga waaweyni uma badnayn inuu miraha gurto, sideedana xoolo la'aan iyo saboolnimo ayuu milaysigu astaan u ahaa. qoladii inta geela laga dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtayoo tan iyo waaga ay wax tabcanayso
midhaha quud ka dhigan jirtay markaasoo yar iyo weynba ay ciddiyuhu madoobaan jireen markaas baa waxaa la odhan jiray reer hebel waa cayr fara madow ama waa mooryaan fara madow arrintaas iyada ah isaga oo salaanmaanka ku haya oo raggii hore waa dhiifoonaaye ka baqaaya in loogu gabiyo ayuu madaxa is yidhi kollay gabay waa mahuraane qorii xero adigu ku hormar intii lagaala hormari lahaa markaas buu ka gaarsiiyey tix gaabano uu kaga eed sheeganayo aqalkiisa aan cunnada lagu ogeyn hilib iyo caanatoona aqalkiisa ka maran isla markaana aqal aroosa lagu sheegayo wuxuu yidhi laba lahinjiyaba waa hunguri kii horrayn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn ha qabla oo buuxa amaan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda guur uma hagaagine waxbaa loo hadoodile isla markiiba nin seediyaashii ka mid ahaa oo ducaale aadan qoolaab la odhan jiray ducaale dheerana ku magac dheera ayaa tixdaas haraan jawaab degdega ka celiyey wuxuu gabyaaga kula dacwiyey inuu sabir daran yahaye reerka uu midhismada ku yahay aanu marnaba u daraan si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta salaan ku soo celinayaa maalintii aqalgelkiisa oo markaa maalmo aan 10 dhammayn laga joogo in geel iskuma jiree hashii soobir la odhan jiray uu u qalay gabagabada taxdana wuxuu ducaale gabyaaga ugu ballan qaaday kollow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tebada muqmad iyo subag laga soo milaalay ay soo dhoobi doonaan loose baahan yahay intaa ka hor inuu dulqaato wuxuu yidhi salaanow gob samir weynay waa saancad iyo ceebe 8 cishaba waa intuu sahanku laalaaye saha duniyaddaa yeelatoo reer saldhigi waaye geel kale samcane waanigii soobir gowracaye waa soo sidnaa xerihii saabka loo taray seedi waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmaahday salaan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray wuxuuba rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo faral u kala baxdo in tolka iyo xididku ay iyana labadaa u kala baxaan oo tolku uu faral yahay xididkuse uu sunno yahay taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixuu ducaale dheeri tiriyey oo uu magaciisa ku soo qaaday dhammaadka tixdiisa ayuu salaan isku garsiinayaa maantaa kadib inaanu ducaale iyo seedi kala toona ka xishoon doonin welibana uu maanso nafta kaga qaadi doono wuxuu yidhi 3 jeer dulqaataye hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunno ee seediyaaldayine mugga maan xambaarada ku sugo saasay geerida dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta waa naga intaa waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo